السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود وهذا أدي هذا وما سنتين ما أنتوا جمعة وناكسن يعني ذي هاي وانا سجال كبيش جانوري كوبات سنة كلا بدو كون اللحية لباتنك موقال كان وحربا إن ندي كله وذاقه عسكري كتر سنة إذا مدى آيس أربعة قبل عدان كهيد كود لي مينيابوليس ومجا عيسى لشاعي وحجر تيد عذاك له وبشي لحد السنة كيهوري إسلا قبل كمينيسوتا إسلا نينكاسي كل دعدي وان إدلا وذاقيا dacdadaasi sidoo kale maxay tahay magaalada Portland ee gobolka Oregon shalayna ciidamada ICE ayaa laba nin oo ay ku sheegeen in wadanka Venezuela ay ka yimaadeen wadankana sharci darro ay ku joogeen kana mid ahayeen kooxaha gaangiska ee Trenta de Aragao la yiraahdo ay halkaasi ku dhaawaceen arrimahaasina sidoo kale waan idinla wadaagaya gobolka Minnesota maxay ka leeyihiin in dowladda federaalku ay u diiday baaritaanka dilkii gabadhii askariga ICE-ka in gobolka uu ka qayb galo maanta maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa shir jaraa'id qabtay xeerlaaliyaasha degmada Hellebeen iyo waliba xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota iyaguna shir jaraa'id ayay sidoo kale qabteen marka arrimahaas ayaan idila socodsiinaya balse marka hore soo dhawaada waxaa jirta in wasaaradda amniga gudaha ay warbaahinta u diiday in magaca askarigii ICE ka tirsanaa ee arbacadii gabadhii cadaanka ahayd ku dilay magaalada Minneapolis in ay la wadaagto warbaahinta laakiin warbaahintu dhankooda ayay baaritaan ka sameeyeen marka ninkaasi ayaa la baaray maadaama wajigiisa la arkayay warbaahintu baaritaano kala duwan ayay ku sameeyeen waxa la soo helay kiis maxkamad gaaray oo bishii lixaad ee sanadkii hore isla Minneapolis ka dhacay shil uu isla ninkan uu ku lug lahaa gabadha dilay arbacadii ninkan magaciisa waxa la yiraahdaa Jonathan Ed Ross waa 43 jir Ciraaq ayuu ka soo dagaalamay intii u dhaxaysay 2004 ilaa 2005 waxaa sidoo kale uu qabaa gabar soo galooti ah oo wadanka Philippines ka timid oo caruur u dhashay marka ninkan waxa ciidamada xuduudaha ilaaliyo uu ku soo biiray sanadkii 2007 waxa la leeyahay marka waxa uu ka tirsan yahay qaybta xaaladaha degdega ah ka jawaabta ee ciidamada ICE waa askarta sida gaarka u tababaran ee xaaladaha degdega ah ka jawaabta ayuu ciidamada ICE ayuu ku jiraa waxay leeyihiin ciidamada ICE waxa uu ku soo biiray sanadkii 2013 marka waxaan ognahay wasaaradda amniga gudaha ayaa ciidamada xuduudaha iyo kuwa ICE ba wasaaradda amniga gudaha ayay hoos tagaan meelaha qaarna waxay sheegayaan in sanadkii 2015 oo ciidamada ICE uu ku soo biiray marka ninkan waxa jirtay in dhacdo kale oo Minneapolis ka dhacday bishii June 17 gaar ahaan Bloomington Minnesota oo ninkan uu ku lug lahaa waa halka laga soo helay ninkan magaciisa iyo sidoo kalena inuu xitaa marqaati kiiskaasi ka ahaa waxa jirtay in ciidamada ICE nin wadanka Guatemala ka yimid oo magaciisa la yiraahdo Roberto Carlos Munoz ay ku istaajiyeen light oo traffic light ah isla markaana ay sharcigiisa iyagoo weydiinaya ninkan sida aad aragtaan gabadha dilay oo hadda magaciisa Jonathan Ross lagu sheegay in daaqada darawalka uu madaxa la galay si uu ula hadlo ninkan ay istaajiyeen markaas kadib darawalkii ninkan oo Jonathan Ross oo ICE ka tirsan oo gaarigiisa madaxa daaqada kula jira ayuu gaarigii dhaqaajiyay ilaa iyo 100 tallaabo ayuu jiidayay marka ninkan askariga oo ka tirsan ciidamada ICE dhaawacyo kala duwan ayaa gacmaha ka soo gaaray markaas sida sawiradan ka arkaysaan oo xitaa laga daweeyay waxa la leeyahay 33 qodob ayaa laga tolay in gacmihiisa oo dhaawacyadaasi kala duwan ay ka soo gaareen isbitaal ayaana loola dhigay marka waxa dhacday in maxkamad la isla tago oo ninkii markii la xiray oo sharci darrada Guatemala waa askarigan ICE ka tirsan oo hadda gabadhaas cadaanka dilay in Renee Nicole Good arbacadii in maxkamad la isla tago maxkamadii marka sida aad ka aragtaan waraaqihii affidavit-ka marqaatiga koobaad ayuu ahaa magaciisa ayaa ku qoran ninkana waa ninka oo askarigan jiiday ICE oo gaarigiisa ku jiiday ilaa 100 tilaabo ilaa markii dambe uu ka soo dhaco markii dambena ninkii waa la qabtay oo maxkamad ayaa la isla tagay marka ninkan waa askari oo veteran oo ruugcada ah Ciraaq ayuu ka soo dagaalamay 2004 ilaa 2005 ciidamada xuduudaha 17 sanadkii 2007 ayuu ku biiray marka ciidamada xuduudaha sanad ilaa iyo sanadkii 2007 markuu ku soo biiray waxa uu qaabilsanaa ay ciidamada xuduudaha dhinaca El Paso Texas jooga marka ciidamada xuduudaha waxa uu qaabilsanaa in uu u basaaso oo basaas u noqdo sida kooxaha daroogooyinka soo gelinaya Mareykanka oo Mareykanku ula dagaalami lahaa waxana ICE uu ku soo biiray sida aragtaan 2015 meelaha qaarna 2013 inuu ku soo biiray ayaa qoran marka askarigan sida muuqata waa askari ruugcada ah
oo ciidamada xuduudaha iyo kuwa ICE ba isku soo maray waxaana la leeyahay waxa uu ka tirsan yahay special response teamka marka xaalad ay dhacdo ICE ciidamada sida gaarka u tababaran ee ka jawaabo ayuu ka mid yahay marka hadda waxaa sidoo kale soo baxaysa in dowladda federaalku ay u diiday gobolka Minnesota baaritaanka dilkii arbacadii dhacay oo gabadhii cadaankeeda oo ninkan u geystay in ay gobolku uu qayb ka noqdo shalay waa kii gudoomiyaha gobolka ka hadlay maanta marka waxaa shir jaraa'id qabtay duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey waxa uu yiri masiibo markay dhacdo waxa kaliya oo loo baahan yahay waxa ay tahay in hufnaan la muujiyo laakiin ma ahan in sharciga la qaloociyo muhiimaddu waxay tahay in sharciga la raaco waxa uu yiri wasaaradda cadaaladda wasiirkeeda Pam Bondi iyo maamulka Trump isla markiiba conclusionka ama go'aanka ay gaareen waxa ay tahay in gabadhan ay qaldaneed oo askarigan ay doonaysay in gaarigeeda marsiiso askarigan uu istifaacay laakiin waxa uu yiri Minnesota horay waxa uga soo dhacay dambiye kala duwan gobolka Minnesota isaga ayaa baaray waxaa jirta qayb gobolka Minnesota u qaabilsan dambiyada dhacay inay baaritaan ku sameeyaan waxaana la yiraahdaa Minnesota Bureau of Criminal Apprehension marka waxa uu yiri waa in qayb laga geliyaa baarayaasha ruugcadayaasha ee ka tirsan waaxdaasi gobolka Minnesota in arintan ay baarista ay qayb ka noqdaan marka gobolka Minnesota sida muuqata waxa uu doonayaa in uu qayb ka noqdo baaritaanka dilkaasi lagu sameeyo laakiin dowladda federaalku ilaa ay hadda waa ay u diidan tahay marka waxa uu yiri haddii aan waxba la qarinaynin oo la doonayo runta in la ogaado waa in gobolka Minnesota uu baaritaankan uu qayb ka noqdo bal isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri when a tragedy strikes there is one word that summarizes what is most important and that word is integrity. This is not the time to bend the rules, this is a time to follow the law. This is not a time to hide from the facts, this is a time to embrace them, making sure that we're pushing for transparency every step of the way. The fact that Pam Bondi's Department of Justice and this presidential administration has already come to a conclusion about those facts is deeply concerning. The facts that from the very beginning they're calling the victim a domestic terrorist, they're calling the actions of the agent involved as some form of defensive posture. We know that they've already determined much of the investigation, and even if they haven't, there is the appearance that there is some conclusion drawn from the very beginning. If not hide from the facts, why not embrace them? If it's not a problem to have additional people at the table that have a deep commitment to the process and transparency and have run these investigations before, then why not include them in the process? The Bureau of Criminal Apprehension at the state of Minnesota has consistently run these investigations before. They have done so without bias. They have done so with a great deal of expertise. This is not some radical way out there group. This is a group that is formed by experts who understand how to investigate. Many of them have been police officers themselves. So our ask is really simple here. Our ask is to embrace the truth. Our ask is to include the Bureau of Criminal Apprehension in this process because we in Minneapolis want a fair investigation. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz waxa uu heegan geliyay ciidamada ilaalada qaranka maadaama mudaharaadyo xoogan ay socdaan oo hadda Portland ay ka bilaabeen oo arinteeda aan idin la wadaagi doono Minnesota habeenkii labaad ama maalintii labaad ay ka socdaan in haddii xaaladdu ay ka sii darto ciidamada uu heegan geliyay oo haddii loo baahdo si degdeg ah Minneapolis loogu soo daadgureyn karo dhinaca kale waxaa shir jaraa'id iyaguna maanta qabtay xeerlaaliyaha degmada Hennepin oo halka dhacdadu ay ka dhacday iyo sidoo kale xeerlaaliyaha guud gobolka Minnesota xeerlaaliyaha degmada Hennepin Mary Moriarty ayaa la yiraahdaa xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota waa Keith Allison marka waxay yiraahdeen waxa aan ka cabsanaynaa in natiijada ka soo baxda baaritaanka aysan dowladda federaalku la wadaagin xafiisyada xeerlaalinta midka gobolka iyo waliba midka degmada waxaana sidoo kale xeerlaaliyaha gobolka Minnesota Keith Allison oo ka codsaday shacabka qof kasta oo muuqaal la xiriira dhacdadii gabadhaasi askariga ICE uu ku dilay arbacadii in uu la soo wadaago oo ay u baahan yihiin haddii muuqaalo kale ay jiraan in ay helaan marka muuqaalo fara badan ilaa ay hadda waa la hayaa laakiin waxa laga yaabaa dhowr angal oo kala duwan muuqaalo laga duubay inay jiraan marka
Mary Moriarty oo xiriiryaha degmada Hennepin waxay tiri xafiiska FBI-da ay ku leedahay gobolka Minnesota xiriir wanaagsan oo qoto dheer ay horey nooga dhaxayn jiray marka ay arrin dhacdo in laga wada shaqeeyo baaritaankeeda laakiin hadda arrintan sida muuqata waxay tiri waxay FBI-du baaritaanka ku koobeen iyaga oo kaliya marka ma doonayaan xafiisyada kala duwan ee gobolka Minnesota in ay qayb ka geliyaan waxay leeyihiin arrintaasina ma ahan arrin aan u dulqaadan karno dhinaca kale shalay magaalada Portland ee gobolka Oregon dhacdo kale oo ICE ay ku lug leeyihiin dad ay ku toogteen ayaa ka dhacday waxa la yaab leh meesha gabadha cadaanka ah lagu dilay ee Minnesota waa 34ka iyo wadada la yiraahdo Portland haddana shilkan waxa uu ka dhacay magaalada Portland ee gobolka Oregon waxay ciidamada ICE ay sheegeen qoraalkan ay soo saareen wasaaradda amniga gudaha ay sheegtay shalay saacadu marka ahayd 2:19 daqiiqo ciidamada xuduudaha ilaaliya ayaa wax oo sameynaya baaritaano gawaari in magaalada Portland ee gobolka Oregon ayaa qof passenger ah in waxa uu Venezuela ka yimid isla markaana sharci darro ah xiriirna la leh kooxaha muqaadaraadka ka ganacsada ee Trenta de Aragao isla markaana mas'uuliyiinta kooxahaasi Trenta de Aragao ka mid isla markaana haweenka xitaa jirkooda ka ganacsada ayaa toogashadaasi qayb ka ahaa marka waxay sheegeen in darawalka gaariga waday oo la rumaysan yahay inuu xubin ka mid ahaa kooxahaasi gaangiska oo Trenta de Aragao la yiraahdo in shakhsiyaadku markii ay aqoonsadeen isla markaana ay isku sheegeen gaarigana dad kale ay la saarnaayeen oo gaarigiisa hub ahaan uu doonayay inuu ciidamada ugu isticmaalo isla markaana uu dul maro sida darteedna ciidamadu waa isdifaaceen oo risaas ayay direen sida qoraalkan afayeenka wasaaradda amniga gudaha Tricia McLovin ay ku sheegtay marka mas'uuliyiinta gobolkuna hadda gobolka Oregon arrintaasi waa ay ka hadleen baaritaan ayaana haddana FBI-du ay ku wada iyaga ayaa si gaar u baaraya laakiin labadaasi qof ma aysan dhiman oo waa ay dhaawacmeen markii dambena booliska ayaa yimid oo isbitaallo ayaa la geeyey marka labada dhinacba marka hadda magaalada Portland ee gobolka Oregon iyo Minneapolis ba mudaharaadyo ayaa ka socdo waxaana laga cabsi qabaa in gobolada Mareykanka ay ku sii faafaan mudaharaadyadaan ayna looga soo horjeedo ICE waxa la leeyahay ilaa iyo bishii September ilaa iyo 9 qof ayay toogteen marka bishii September ee 9 ee sanadkii hore laga soo bilaabo ilaa iyo 9 qof ayay toogteen marka waxa muuqata hadda inay caadaba ka dhigteen in dadka iska toogtaan ama dhimasho iyo dhaawac ay markaasi ay dadku ay noqdaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo